u yeedho guddoomiyaha gobolka Karkaar Maxamuud Ismaaciil si uu halkan ugaga dhawaaqo natiijadii degmadan Qardho. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa halkan inaan kaga dhawaaqo natiijadii doorashadii golaha deegaanka degmada Qardho. Sida wada ogsoonahay, waxaa 25 Oktoobar shalay loo dareeray doorasho taariikhi ah, taas oo dadka degmada Qardho u ahayd waa cusub iyo himilo u dhowey. waxaa Qardho soo gudbiyey liiska musharaxiinta golaha deegaanka 7 urur siyaasadeed oo ka mid ah urur siyaasadeedyada Puntland. tirada guud ee codadka degmada Qardho ka codaysay waa 16,723 codbixiye. sidoo kale tirada codadka ansaxay waa 15,344. tirada codadka khaldamay waa 1,379. wadarta codadka iyo kuraasta ay kala heleen ururada siyaasaddu. urur siyaasadeedka runta iyo cadaaladda wuxuu helay 85 cod, wax kuraas ahna kuma guuleysan. urur siyaasadeedka shaqaalaha xoogsatada ah wuxuu helay 29 cod, wax kuraas ahna kuma guuleysan. urur siyaasadeedka cadaaladda iyo sinaanta wuxuu helay 4,197 cod oo u dhiganta 9 kursi. urur siyaasadeedka wuxuu helay 5,469 cod oo u dhiganta 12 kursi. urur siyaasadeedka mideeye wuxuu helay 5,173 cod oo u dhiganta 11 kursi. urur siyaasadeedka horseed wuxuu helay 150 cod, wax kuraas ahna kuma guuleysan. urur siyaasadeedka ifiye wuxuu helay 218 cod oo u dhiganta 1 kursi. intaasi waa codadka guud iyo siday ururadu u kala heleen iyo intay kuraas heleen. hadda waxaan rabaa inaan u gudbo liiska xubnaha la doortay ee golaha deegaanka. waxaa soo baxay xildhibaano dhan 33 xildhibaan oo golo deegaan, kuwaas oo 9 ka mid ay yihiin haween, taasoo u dhiganta 27% golaha deegaanka degmada Qardho inay qaateen haweenku. waxaan rabaa marka inaan akhriyo liiska xildhibaanada golaha deegaanka degmada Qardho. 1 Dr. Xuseen Muuse Nuux. 2 Maxamed Cabdullaahi Siciid Diriye. 3 Khadro Jaamac Nuur Cumar. 4 Injineer Bashiir Siciid Xisi Guleed. 5 Cabdiraxmaan Xasan Cabdi Siciid.
6 مريم عبد علي سعيد 7 محمود عبد الله عمر فارح 8 أحمد جامع محمود قوليد 9 فرحية عبدي أحمد محمود 10 محمد فارح برالي عبدي 11 محمود محمد عيسى عثمان 12 ورسن شيخ أحمد عبد الله 13 مرسل محمود أحمد علي 14 عبد الرزاق محمد روبلي 15 فايسة سعيد علي أحمد 16 عبد الرشيد سعيد هيرة إربر 17 عائشة خضر عبدي مري 18 مصطفى ياسين صلاة فارح 19 حسن عيسى محمد فارح 20 محسن عبد الله حاج عبدي 21 عبد الخضر محمد شريف 22 محمد حسين أحمد فارح 23 عبد القادر سعيد عبدي محمد 24 فاطمة عبد السلام حرسي علي 25 سليمان بشير عيسى عرشة 26 عبد القادر عمر محمد محمود 27 محمود سعيد جامع فاهية 28 عبد الرزاق فارح عبدي جامع 29 مريم محمد بر موسى 30 علي سعيد موسى علي 31 هدن أحمد آدم عرالي 32 عبدي محمد عبيد محمد 33 أحمد عبد الرحمن حسن دعالي 33 راسي وليسكي xildhibaanada golaha deegaanka degmada Qardho oo ah xildhibaanadii ugu horeeyay degmada Qardho ee lagu doorto nidaamka qof iyo cod waxaan rajaynaynaa inay ka turjubaan baahida iyo rabitaanka bulshada maadaama bulshada Qardho ay soo doorto aad iyo aad u mahadsan yahay markana waxaan u yeerayaa Cabdullaahi Faarax Mire oo halkan isaguna naga siin doona warbixin guud oo gudoomiyuuna uga dambeyn doono soo dhawaad bismillaahir rahmaanir rahiim maantay oo 26 bisha Oktoobar ay tahay Puntland iyo Soomaaliya oo dhan waa maalin waxa weeye taariikhi ah oo ka tarjumaysa sida uu bisayl u gaarayo una hormarayo nidaamka siyaasadeed waxay astaan u tahay maalin loo guuray in talada shacabka loo dhaweeyo iyaguna ay ka go'aan gaaraan quruxdeedana waxa ka mid ah natiijada waxa weeye hadda waxa weeye la shaaciyay oo ka tarjumaysa sida waxa weeye dadkii ay rabeen ay u doorteen codkoodina waxa weeye ugu cilbaxeen shalaytu waxa aad maalin taariikhi ah oo dadka waxa weeye saddexda degmaba ay u galeen safaf dhaadheer sidii waxa weeye ay u dooran lahaayeen xilli horena u soo kala laheen qorax kuleelka iyo waqtiga dheerna waxa weeye ay ku sabreen ilaa xalayto waxa weeye xilli dambe ay waxa weeye safafka ugu jireen inay waxa weeye codkooda u dhiibtaan waxa uu ka tarjumayaa sida Puntland ay markii horeba waxa weeye nidaamka dawladnimada iyo in mushkiladda Soomaaliya waxa weeye hoos laga soo dhiso oo bottom up approach waxa weeye la qaato isla markaasna waxa weeye nidaamka dawladnimada waxa weeye hoos laga soo xoojiyo inay maanta tusaale kalena ay ka bixisay in nidaamka waxa weeye dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan waxa weeye ay u baahan yihiin in hoos laga dhiso in golayaasha deegaanka oo dadku ay baahi weyn u qabaan inay waxa weeye dad tayo leh soo doortaan waxa weeye in fursadaas waxa weeye la siiyo maanta waxay tahay maalin waxa weeye taariikhi ah oo aan marxaanti waxa weeye ka nahay isbeddelka weyn waxa weeye oo dhacay muddadaas dheer kadib oo waxa weeye dawladnimada Soomaaliya ay soo hormareysay in degmada Qardho markii horeysay ay hesho xildhibaano dadku waxa weeye saf dheer u galeen meeshii tiro yar oo kooban
oo waxa weeye farakutirisa waxa weeye sharciyadda golaha deegaanka degmada Qardho lagu heli jiray maanta waxa weeye tiradaas waxa weeye 12,000 ah ayaa waxa weeye go'aan ka gaartay go'aankaasna waxa soo baxay waxa weeye dadkii waxa weeye ku matalinaha waxaan u hambalyeynaa waxa weeye dhammaan cidii waxa weeye ka qayb qaadatay waxaan si gaar waxa weeye aan ugu mahad celinayaa shaqaalihii ka shaqeynayay goobaha diiwaangelinta oo runtii waxa weeye u dhabar adeegay sabar dheerna u lahaa waxa weeye waqtiyo dheer in waxa weeye shaqeeyaan una sabray waxa weeye dadweynaha iyo dadka sababka dhaadheer waxa weeye ku jira sidoo kale waxaan waxa weeye u hambalyeynaa bulshooyinka waxa weeye Qardho gaar ahaan oo noqday waxa weeye degmooyinka u horeeyay oo fursadaas waxa weeye helay si qurux badan waxa weeye tusaale uu noqday degmooyinka kale waxa weeye Puntland tani waxay u tahay fure waxa weeye nidaamkii aan isla qaadanay oo ah Puntland inay nidaamka qaadato maantana tareenkiisa uu dhaqaaqay waxa hareen waxa weeye in la dhameystiro oo loo dhabar adeego waxaan ku soo gabagabeynayaa tirada waxa weeye la iclaamiyay oo gabdhaha waxa weeye ku guuleystay in golayaashii hore oo deegaanka waxa weeye hal ama laba ay ku jireen maantana waxa weeye ay markii fursadda la siiyay gabdhuhu waxa weeye inay cod ku yeeshaan doorashada inay gaareen waxa weeye boqolkiiba 27 haddii nidaamkan doorashada waxa weeye la sii isticmaalo oo waxa weeye uu sii socdana waxa weeye markasta uu sii kobco oo sii bislaadana waxaan rajaynayaa gabdhuhu iyaga ah dadka u badan isdiiwaan galiyay in la gaari doono marxalad ay iyagu waxa weeye boqolkiiba 50 iyo ka badan waxa weeye golihii deegaanka ay ku guuleystaan aad iyo aad u mahadsantiin ومسيحي عبد الله فارح ملك كوميشنر عبد الله فارح ملك ودمين waxaan ku soo dhaweynaya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo ina siin doona warbixin guud oo ku saabsan saddexdii degmo iyo sida doorashooyinku u dhaceen بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيارتا هالكن فريدة وأخيارتا كده دعوانيسا يكونوا دقيسانيبا runtii waa maalin farxad leh oo dadkii bulshada saddexda degmo ay doorteen aanu shaacinayno waxaan rabaa inaan idinla wadaago hadda oo halkan Qardho lagu shaaciyey waxaa iyaduna socota qabanqaabadii Ufayn iyo Ayl looga shaacinayo liiska iyo sida ururadu ay u kala guuleysteen iyo liiska xubnaha golaha deegaanka ee la doortay waxaan qiyaasayaa in daqiiqadaha soo socda la sii deyn doono ayagana waxa uu ii harsan natiijadii waxaa ku dhawaaqay mas'uulka anaga noo qaabilsanaa degmada sida xeerkan uu qababa waxa laala iyo wixii hadday jiraan tabashooyin ururada ah waxay u soo gudbin karaan xarunta dhexe ee guddiga ama maxkamadda sare labadaba way gudbin karaan liiska kama dambaysta ah sida xeerkan uu qabo waxaa ku dhawaaqi doona maxkamadda sare hadduu ilaahay yidhaahdo intaasna waa uun xog yaroo kooban oo aan raacinayo waxaan rabaa wixii damo oo casharo laga bartay processkan na ku cusbaa dib baynu ka wada dhigan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo bulshooyinka saddexda degmo ee codkooda ku doortay maanta madaxdooda mahad celin ballaaran aan ugu jeediyo sida ay iskaga xilqaameen codsigii aan u jeedinay oo ahaa inay u dhabar adeegaan maalintaas oo runtii aan ognahay maamooyin waaweyn odayaal duq ah dad baahiyo gaara qaba waayeel intuba inay safar dhaadheer ugu jireen inay codkooda dhiibtaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kana raali-geliyo wax allaale iyo wixii ay qabteen hadday ahaan lahayd habka shaqada iyo hadday ahaan lahayd safarko aad ugu dheeraa iyo wax allaale wixii ka qabteen dadka iyagii shaqaynayay ee guddiga doorashooyinka ahaa dhammaan waxaan leeyahay naga raali ahaada bulshooyinka saddexda degmo waxa weeye waa saddex degmo aan ugu talagalnay inaan casharo ka barano si markaan usii hagaajino degmooyinka shaqooyinka aan qabanayna hadduu ilaahay yidhaahdo ugu dambayn aad iyo aad baa u mahadsan tihiin cid allaale iyo ciddii qayb ka ahayd in ay noo hirgasho riyadii aynu ku riyoonayni oo ahayd bal saddexdan degmo ugu horreysa in tallaabada koowaad ay si guula inoogu hirgasho ilahay inkii waxaan rajaynaya inta harsanna inay sidaan si kasii fiican noogu sii dhici doonto waxaan rajaynaya insha allah maanta maalinteed xigta annagoo ku dhawaaqayna dhammaan liiska musharaxiinta ee golayaasha deegaanka Puntland oo dhan inaynu isugu nimaano madashaan la mida aad iyo aad baa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baa u mahadsantii shirka jaraa'id intaasuu inoogu dhan yahay